بسم الله الرحمن الرحيم وأهبين بتلاده أو أي 4 سو غليسو لبدا بيشا ديسمبر سنة لبكن لباتن يشن أو كوباغان كوبية tobanka bisha jamaadul aakhir sanadka 1447 taariikhda hijriyada ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii qubanaha qodobada aan idinkugu haynana waxa kamid ah. Мы не собираемся воевать с Европой, я уже об этом 100 раз сказал. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. ومدحوينها روشكا فلاديمير بوتين oo caawa si adag ugu hanjabay dalalka Yurub kuna yiri diyaar ayaa u nahay dagaal haddii aad doonaysaan xoutiyiinta oo lagu wado in ay sii daayaan shaqaale ajnabi ah oo saarna markab ay duqeeyeen oo badda cas ay ku dajiyeen faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa wadahadal qadka telefoonka ay ku yeesheen Trump iyo Netanyahu iyadoo si adag looga wada hadlay arrimo kala duwan oo ay ka mid tahay xaaladda dagaalamayaasha Xamaas ee ku xayiran dhulka hoostiisa oo ku yaala Rafah warar Gaza iyo daanta galbeed ku saabsan ayaan sidoo kale barnaamijka idinkugu haynaa Turkiga oo safka hore ka galay dalalka dhaqaalaha ugu badan uu uga soo xaroodo dhoofinta hubka iyo agabka ciidan iyadoo balaayiin doolarna ay ka soo gasho sheekada ugu dambaysa ee barnaamijka aan idinkugu hayaana waxay ku aadan tahay maxkamad ku taal dalka Kuwait oo xukun la yaab leh ku riday muwaadin u dhashay waddankaasi maxay ku saabsan tahay arrintaasi waa idin faahfaahin doonaa dhammaan wararkan iyo qodobo kale ayaan barnaamijka caawa idinkugu soo gudbinaynaa Imara Luxury Homes dhismayaasha cusub ee Imara Luxury Homes waxay ka kooban yihiin 2 qol iyo fadhi 3 qol iyo fadhi 4 qol iyo fadhi iyo guryo dublekiisa iyo kuwo penthouse ah guri kasta waxa uu leeyahay qolkii shaqaalaha waxaana loo dhammaystiray wax kasta oo xaafad gaar ah ay u baahan tahay waa 2 dhismo cusub oo labadaba gacanta lagu hayo dhawaana soo idlaan doona dhismaha koowaad shirkadu waxay ka dhisaysaa xaafadda Parkland City Park Drive 6th Avenue waxa uu ku dhow yahay isbitaalka Aga Khan dhismaha labaadna waxa uu marayaa dabaqa koowaad waxa uu ku yaalaa Kilimani wadada madaxtooyada ama State House-ka ee Deansbury Road faahfaahin dheeriya la xiriir ciwaanada iyo telefoonada shaashada kaaga muuqda ku soo dhawow xarunta caafimaadka ee Private Walk in Clinic Private Walk in Clinic waa xarun caafimaad oo ay ka howlgalaan dhakhaatiir khubaro ah oo isugu jira Soomaali iyo ajnabi oo rag iyo dumar bale xaruntu waxay dib u habayn iyo casriyeyn ku samaysay dhammaan adeegyada caafimaad ee ay bixiso xaruntu waxay furan tahay 7 maalmood ee isbuuca ballantana si fudud ayaad u qabsan kartaa adigoo isticmaalaya telefoon fariin qoraal ah ama online waana heli kartaa ballan dhakhtar isla maalintaas xarunta Private Walk in Clinic waxa ay ku taallaa galbeedka magaalada London xaafadda caanka ee Shepherdbush wixii faahfaahin kala xiriir lambarada emailka iyo baraha bulshada shaashada kaaga muuqda xarunta barashada diinta islaamka ee casriga ah ee habka online-ka wax laga barto ee Tawfiiq Islamic Online waxa ay leedahay 3 qaybood oo kala ah qaybta higaada oo loo diyaariyay muddo cayiman qaybta xifdinta quraanka kariimka qaybta barashada shareecada sida xadiiska fiqiga siirada naxwaha tafsiirka quraanka iyo aqeedada iyo wixii la mid ah waxaana dugsiga kugu diyaara macallimiin rag iyo dumar bale oo u tababaran maadooyinka ay dhigayaan faahfaahin dheeriya la xiriir telefoonka shaashada kaaga muuqda soo dhawaada mar kale daawadaya si aad ula socoto oo hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waadna ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka caawa waxaynu ku bilaabaynaa war weyn oo ka soo yeeray dhanka Ruushka iyadoo xiisadda Moscow iyo dalalka reer Yurub u dhaxaysa ay taagan tahay ayaa madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin wuxuu weerar kulul oo xagga afka ah ku qaaday wadamada Yurub isagoo farta ku fiiqay in dalkiisu uu diyaar u yahay in uu galo dagaal ka dhan ah Yurub isagoo ku eedeeyay inay isku dayayaan dalalkaasi in ay carqaladeeyaan heshiiska joojinta dagaalka Ukraine oo ay ka shaqeynayso haatan in ay wiiqdo istiraatiijiyadda Ruushka Putin oo dadka wararka fidiya kula hadlayay magaalada Moscow ka hor intii aanu la kulmin ergeyga Mareykanka Stephen Witkoff iyo wiilka sodoga u yahay Donald Trump ee Jared Kushner ayaa madaxweynaha Ruushka waxa ku tiiqtiiqsaday hadallo kulul oo Yurub ka dhan ah wuxuuna yiri haddii Yurub si kadis ay u doonayso dagaal ay nagu bilowdo markaas xaaladdu si degdeg ah ay isku bedeli kartaa mana jiri doonto cid aan wada xaajood la geli doono Putin oo hadalkiisa si ambaqaadaya ayaa yiri annagu ma doonayno
inaan dagaal la galno Yurub waan sheegay taas 100 jeer laakiin haddii Yurub ay go'aansato inay dagaal nagu bilowdo waxaan diyaar u nahay isla hadda weliba taasi shaki kuma jiro madaxweynaha Ruushka ayaa carabka ku adkeeyay in Yurub ay dhinaca dagaalka taagan tahay oo aysan lahayn ajenda nabadeed isagoo tilmaamay in dalalka Yurub ay Ruushka u soo jeedinayaan talooyin aan la aqbali karin oo ku saabsan heshiis nabadeed oo Ukraine ku aadan Putin ayaa mar kale yiri dalalka Yurub ajenda nabadeed ma leh waxay taagan yihiin dhinaca dagaalka xitaa marka isku dayayaan inay sheegtaan in ay wax ka bedelayaan soo jeedimaha madaxweynaha Mareykanka Donald Trump si cad ayaan u aragnaa in dhammaan wax ka bedeladaasi ujeedadu ay tahay hal shay oo kaliya waa inay weeqaan hanaanka nabadda oo dhan Putin wuxuu ku eedeeyay Yurub inay soo taagayso maamulka hadda ka jira ee Mareykanka ee madaxweyne Trump in uu gaaro heshiis nabadeed oo Ukraine ku aadan isagoo farta ku fiiqay in dalalka Yurub iskood ay uga baxeen geedi socodka nabadda madaxweyne Putin wuxuu ku nuuxsaday in dalalka Yurub markaasi ay doonayaan in Ruushka ay ku eedeeyaan carqaladaynta nabadda Ukraine isagoo ka hadlay arrintan wuxuu yiri taasi waa ujeedkooda waynu arkaynaa weliba si cad haddii ay dhab ka tahay oo ay doonayaan inay ku soo laabtaan goobta iyagoo ku salaynaya xaaladda dhulka ka jirta oo waaqiciga waan ogolnahay madaxweynaha Ruushka ayaa sidoo kale sheegay in cidna aysan ka reebin Yurub wadahadallada Ukraine isagoo yiri waxay ku andacoonayaan in laga saaray wadahadallada Ukraine laakiin runtu waa inaysan cidna ka saarin ee iyaga ayaa iska saaray Putin wuxuu sheegay in Yurub weli ay ku nooshahay mala awaal ah in Ruushka uu la kulmayo guuldarro istiraatiijiya isla markaasina iskood ay u jaraan xiriirkii Moscow ay la lahaayeen wuxuu ku soo gabagabeeyay hadalkiisa waxay isku qaldeen ribitaankooda iyo xaqiiqada xilligan ay ku sugan yihiin mana awoodaan mana doonayaan inay taas qirtaan waatahay ninkii Putin marka caaw indhaha ayuu shitay taagan yahay Mareykanka wuxuu u ogol yahay dagaalkan Ukraine lagu soo afjari karo ayaa Yurub isku dayaysa inay hor istaagto weliba warkan wuxuu ku soo aadaya iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ay sheegayso inay ka war heshay macluumaadka ku aadan Faransiiska inuu diyaarinayo ciidamo inuu geeyo Ukraine warkaas barnaamijka subaxnimo ee xulashada wararka ayaan idinku soo gudbin doonaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan iminkana Ankara Turkigu muddooyinkii ugu dambeeyay awoodiisa ayuu dhisayay sidoo kale wuxuu ka mid noqday wadamada safka hore kaga jira dhoofinta hubka iyo agabka ciidan taasi oo bilaayin dollar ay ka soo gasho haddaba dhaqaalihii ugu dambeeyay horumarka uu sameeyay iyo macluumaad amuuraha ay ku aadan waxa warbixintan ka diyaariyay wariyahayaga Yaxya Ciise dhoofinta qaybta difaaca iyo duulista hawada ee Turkiga ayaa kor u kacaad u ballaaran oo gaaraya 7 bilyan sameysay sanadkii la soo dhaafay ee 2024 iyadoona ay u muuqanayso in uu gaaray horumar aad u ballaaran sanadkii la soo dhaafay marka la barbar dhigo sanadkii 2020 markaas oo dakhliga Turkiga ka soo galay oo ahaa 2.2 bilyan oo dollar farqigan weyn waxa uu muujinayaa qiimaha dheeraadka ah ee sare ee alaabta difaaca Turkiga iyadoo ay kor u kacayaan wax soo saarka nidaamka casriga ah iyo alaabaha tiknoolajiyadda sare leh sida uu sheegay gudoomiyaha hay'adda warshadaha difaaca ee madaxtooyada Turkiga Hakul Gurgun maareeyaha guud ee shirkadda Samsung Yed Defense Jahud Atku Erel ayaa sheegay in shirkadaha iyo warshadaha difaaca uu ka bilowday soo saarista bastooladaha isla markaana tartanka caalamiga uu ku qasbay inay maalgashi ku sameeyaan soo saarista hubka noocyadiisa kala duwan Arul waxa uu carabka ku adkeeyay in ujeesashada dhanka soo saarista hubka fudud ay sare u qaaday qiimaha dheeraadka ah ee shirkadda isagoo oo sheegay in ay sii wadi doonaan maalgelinta iyo kordhinta qiimaha dheeraadka ah ee alaabtooda warshadaha difaaca iyo duulista hawada ee Turkiga ayaa sii ballaarinaya joogitaankooda suuqyada caalamiga ah iyagoo oo gaaray koboc aan horey loo gaarin 5 bilood ee ugu horeysay ee sanadkan iyagoo oo gaaray dhoofin dhan 2.98 bilyan koror dhan 29% marka loo eego isla muddadii sanadkii hore sida ay muujinayaan xogta xarunta warshada difaaca Turkigu waxa uu kaalinta 11aad kaga jira dunida dhoofinta qalabka difaaca sida lagu sheegay warbixin oo soo saaray macadka nabadda ee Stockholm ee magaciisa loo soo gaabiyo Sibri
5 shirkadood oo Turki ah ayaa galay liiska 100 shirkadood ee difaaca ugu awooda badan dunida sida ay sheegtay majalada Defense News 2025 iyada oo wadarta dakhligoodu uu gaaray ku dhawaad 11 bilyan halka iibku uu kordhay 28% marka loo eego sanadkii 2024 shirkadaha ugu waaweyn ee Turkiga ee dakhliga badan ka helay iibka hubka iyo agabka ciidamada ayaa waxa ay kala yihiin shirkadda Aselsan oo gashay kaalinta 43 adduunka waxayna iibisay agab qiimihiisu u dhan yahay 3.54 bilyan shirkadda agabka ciidamada iyo dagaalka hawada ee magaceeda loo soo gaabiyo Tusash oo gashay kaalinta 47 waxa ayna iibisay agab qiimihiisu uu ku fadhiyo 3.15 bilyan shirkadda Roketsan waxa ay gashay kaalinta 71 waxayna iibisay qalab qiimihiisu uu dhan yahay 1.54 bilyan shirkadda Hafilsan waxa ay gashay kaalinta 78 iyadoo iibisay hub iyo agab ciidan oo qiimihiisu uu dhan yahay 1.27 bilyan shirkadda MKE waxa ay gashay kaalinta 8aad iyadoo dhoofisay ama iibisay hub iyo agab qiimihiisu uu dhan yahay 1.20 bilyan oo dollar sanadkii 2024 warshadaha difaaca Turkigu waxay ku kordhiyeen 1.9% dakhliga wax soo saarka gudaha ee dalkaasi halka dhoofintoodu ay ahayd 2.7% guud ahaan dhoofinta dalka dhan ay ahayd 262 bilyan sida ay muujinayaan xogaha rasmiga ah Yaxya Ciise HBN Online TV waata yaxay aad buu mahadsan yahay goordhow waxaan u gudbaynaa warar la xiriira faahfaahin ka soo baxaysa wadahadal qadka telefoonka ay ku yeesheen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu hadal adag ayaa ka dhacay wadahadalkaasi intii uu socday gaar ahaan arrinta la xiriirta dagaalamayaasha ka tirsan iska caabinta Falastiiniyiinta ee ku xayiran gudad dhulka hoostiisa oo ku yaal aagga Rafah waxaan kaloo idin haynaa xuutiga oo lagu wado in ay sii daayaan shaqaalihii saarna markab ay ku duqayeen badda cas oo ay dejiyeen iyo sheekadii ugu dambeysay ee barnaamijka laakiin aynu ku hakanno qadar xayisiina hoyga barashada diinta ee xifdul qur'aan online maadooyinka lagu barto waxaa ka mid ah quraanka kariimka higaada axaadiista ducooyinka tarbiyadda asaasiga ah ee ilmaha tafsiirka quraanka iyo qaybaha kale ee culumta shareecada waxaadna helaysaa 24 saacba 5 maalmood oo ka mid ah isbuuca dugsigu waxa uu bixinayaa caddayn waxbarasho oo aqoonsi leh ama shahaado faahfaahin dheeriya la xiriir whatsappka +252 633 145 153 wargelin muhiim ah ma doonaysaa in laga cimreeyo waalidiintaada oo dhintay ama sariiryaal ah wax ka yar $300 ayaa lagaga cumraynayaa waalidkaaga shirkadda Altaqwa ayaa kuu samaysay qiimo dhimis waxaa lagu soo duubayaa muuqaalo ku saabsan qaabka cumrada ay u dhacday haddaba wixii faahfaahin kala xiriir shirkadda Altaqwa Hajj and Umra nambarka shaashada kaaga muuqda internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah soo dhawaada mar kale daawadayaal wali waxaad la socotaan barnaamijkii qubanaha oo toos idinkaga imaanaya istuudiyaha iyaga koowaad barnaamijyadeena waxaad ka heli kartaan bogagga bulshada ee internetka sida YouTube-ka Facebook-ka Twitter-ka iyo Telegram-ka warbixino qoraal ah warar faallooyin iyo macluumaadyo kale waxaad ka heli kartaan bogga internetka aynu ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com ku xirnaa HBN oo ka dhigo wehelkaaga wararka waa hagaag xagga qasa aynu qoraansanno intaanan idin soo gudbin warbixinta la xiriirta wadahadalkii qadka telefoonka ay ku yeesheen Trump iyo Netanyahu oo xog badan saxaafadda loo dusiyay Israa'iil ayaa lagu soo warramay inay sii wado weerarada iyo duqeymaha ay ka geysanayso Mareykanka Gaza ugu yaraan 5 qof oo Falastiiniina ayaa lagu soo warramayaa in lagu dilay weeraradaasi laba ka mid ah waa saxafi kaamiristaha la socday oo isaga laftigiisa la sheegay dhaawacina soo gaaray waxa kale oo militariga Israa'iil ku andacoonayaan inay dileen 3 dagaalamayaal ah oo ay sheegeen inay ka soo baxeen god waa sida dalka loo dhigay dhinaca daanta galbeed xilligan waxa lagu soo warramayaa ciidanka Israa'iil hawlgallo ballaaran inay ka wadaan qaybo badan oo ka mid ah magaalooyinka daanta galbeed iska horimaadii ayaa meelaha qaarkood laga soo warinaya waa tahay barnaamijyadeennii ugu dambeeyey waxaan idinkugu soo gudbinay wadahadal qadka telefoonka ay ku yeesheen madaxweynaha Mareykanka
Donald Trump iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu haddaba faahfaahin dheeraad ah ayaa saxaafaddu ay heshay oo wadahadalkaasi la xiriira telefishinka kanal 12 ee Israa'iil laga leeyahay ayaa soo warinaya in ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu weydiistay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump in uu sii wado sidii uga caawin lahaa helitaanka cafiska uu ka doonayo madaxweynaha Israa'iil Isaac Herzog intii lagu jiray wadahadalkaasi telefoonka ay ku yeesheen labada nin iyadoo la soo xiganayo laba mas'uul oo sarsare oo Amerikaan ah sida ay sheegeen mas'uuliyiinta Trump wuxuu Netanyahu u sheegay inuu aaminsan yahay in arrinta cafisku si wanaagsan ku dhamaan doonto laakiin uusan ballan qaadin tilaabo dheeraya mas'uul kale oo Amerikaan ah ayaa sheegay in Netanyahu uu rajeynayay faragelin dheeraad ah oo Trump ku sameeyo kiiskan laakiin Trump wuxuu dareemayaa baa la yiri in uu horay u sameeyay wixii uu awooday mas'uul Israa'iili ah ayaa u sheegay shabakadda in Trump uu ahaa markaasi arrimaha ugu dambeeya ee la xiriira amaba uu waday arrimaha la xiriira sidii loo cafin lahaa Netanyahu isaguna uu fikirkaasi horayba u keenay labada nin waxay ku heshiiyeen arrintaasi in laga wada shaqeeyo laakiin ilaa xilligaas waxaa la sheegay in Trump uu ka yara gaabsanayay telefishinka kanal 12 ayaa waxa uu sheegayaa in wadahadalkii Trump iyo Netanyahu markii dambe si dhaqso leh ugu gudbay arrimo kale oo khilaafaad xasaasi ah ka taagan yahay gaar ahaan arrinta Gaza Trump ayaa wuxuu Netanyahu ku yiri waxa loo baahan yahay inaad noqoto saaxiib wanaagsan si loo horumariyo wajiyada xiga ee heshiiska Netanyahu wuxuu ku jawaabay inuu samayn doono wixii karaankiisa ah Trump ayaa markaasi cadaadis saaray ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu gaar ahaan arrinta dagaalamayaasha Hamas ka tirsan ee ku go'doonsan marinada dhulka hoostooda ee ku yaala Rafah wuxuuna su'aalay maxay tahay sababta loo dilay xubnahan halkii aad ogolaan lahayd inay isdhiibaan kadibna waxa la sheegay in Netanyahu uu yiri dagaalamayaashani way hubaysan yihiin waana kuwa qatar badan sidaas darteed ayaa loo beegsanaya kadibna wadahadalku wuxuu u gudbay baa la yiri arrinta Suuriya mas'uuliyiintan arrimahani laga soo xiganaya ama wararkan waxay sheegayaan in Trump si cad ugu hor yimid si socoshada hawlgallada Israa'iil ee waddanka Suuriya isagoo Netanyahu u sheegay inuu isdejiyo oo uu ka fogaado tilaabo kasta oo dhalin karta caro ka timaada hoggaanka cusub ee Syria kadib wicitaanka Netanyahu wuxuu u muuqday baa la yiri in uu dabciyay hadalladiisii ku saabsanaa Syria isagoo jeediyay in heshiis la gaari karo waqti dhow isla markaasna wuxuu tilmaamay in dhawaan uu safri doono aqalka cad si arrimahaasi toos oo ugala hadlo Donald Trump xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'iil oo arrinta la weydiiyay oo ay ka gaabsadeen inay ka hadlaan oo tahay imikana Sanaa waxaa lagu soo warramayaa Xuutigu inay qorsheynayaan inay sii daayaan shaqaale ajnabi ah oo saarna markab intay duqeeyeen badda cas ku degay 9 badmaax oo u dhashay waddanka Philippines oo saarna markab xamuul ah oo Xuutiyiintu ay duqeeyeen kadibna badda ku quusay ayaa la filayaa in la sii daayo sida ay sheegeen mas'uuliyiinta waddanka Philippines ragga ka badbaaday markabka Eternity Sea oo ku gooshayay calanka Liberia ayaa waxaa lagu soo warramayaa in ilaa iyo xilligaasi Xuutigu gacanta ay ku hayeen markabkaasi wuxuu ahaa markabkii labaad ee ganacsi oo maalmo isxiga bishii July Xuutiyiintu ay duqeeyeen kadibna ay dejiyeen Xuutiyiintu waxay markaasi soo daayeen muuqaal muujinaya weerarka lagu qaaday markabka iyagoo sheegay inay badbaadiyeen tiro aan la cayimin oo ka mid ah shaqaalaha oo ay gaarsiiyeen ama geeyeen meel ammaan ah wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Philippines ayaa sheegtay inay ka heshay xog dalka Cumaan oo tilmaamaysa in 9 badmaax ee Philippines u dhashay ee saarnaa markabka MV Eternity Sea oo ay Xuutiyiintu ku haysteen badda cas la siin dayn doono bayaan ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu amaanay dadaalada dawladda Cumaan waxaana la sheegay in raggaasi marka hore loo soo wareejin doono magaalada Sanaa oo Xuutiga oo maamulo kadibna loo sii gudbin doono waddanka Cumaan ka hor inta aan loo qaadin dalkooda afayeenka arrimaha dibadda ee Philippines ayaa ka gaabsaday in uu bixiyo waqti rasmi ah oo ku aadan sii deyntan waxaana uu sheegay in arrintu ay tahay mid shuruud ku xiran Xuutiyiinta ayaa xilligaasi waxa ay sheegayeen in weeraradooda ay ku wajahan yihiin maraakiibta xiriirka leh Israa'iil iyagoo taasi uga gol lahaa taageerada ay u hayaan shicibka Falastiiniyiinta weeraradan ayaa sabab u noqday in shirkado badan oo maraakiibta ay ka fogaadaan marinka muhiimka ah ee Bab el-Mandeb oo ganacsiga adduunka
boqolkiiba 12 halkaasi oo maro badmaaxiinta Filibiin ayaa waxay ka yihiin boqolkiiba 30 dhammaanba shaqaalaha caalamiga ee maraakiibta ganacsiga ku dhawaad 7 bilyan oo dollar ayay dalkooda u soo xareeyeen sanadkii 2023 oo kaliya taasi oo ka dhigtay qiyaastii rubuc lacagaha dibadda ay ka hesho Filibiin waa tahay imika waxaynu soo gaarnay sheekadii ugu dambeysay ee barnaamijka aynu ku soo gabagabayn jirnay aalaab waxaynu ku soo qaadanaa sheeko ka duwan sheekooyinka barnaamijka aad ku soo daawateen caawa xaggaasi Kuwait baynu aadaynaayee maxkamad ku taala dalkaasi Kuwait ayaa xukun la yaab leh riday maxkamadda racfaanka ee dalka Kuwait ayaa xukun adag ku riday qof shaqaale dowladeed ahaa oo lagu helay musuqmaasuq la xiriira mushaar qaadasho qaanuunka ka baxsan ninkan oo magaciisa aan la shaacin ayaa lagu xukumay 5 sano oo xabsi ah wuxuuna bixin doonaa ganaax lacageed oo gaaraya 312 kun oo lacagta diinaarka Kuwait oo u dhiganta 1 milyan iyo 16 kun oo dollar kadibna waxaa la sheegayaa in ninkan sababta xukunkaasi loogu riday ay tahay mushaar uu iska qaadanayay isagoo xafiiska iyo shaqadaba aan tagin dukumentiyada maxkamadda ayaa waxay muujiyeen baa layiri in waaxda muwaadiniinta iyo adeega bulshada ninkan la sheegayay in muddo 10 sano ah oo ka shaqeynayay uusan tagin laakiin mushaarkiisa bil walba uu soo dhacay akoonkiisa bangiga markii arrinta ay soo baxdeena waxaa la furay dacwad ku saabsan hantidaasi qaanuunka ka baxsan ee uu qaatay iyo ku tagrifalka xoolaha dadweynaha intii lagu guda jiray maxkamadda ayaa waxaa la sheegayaa in lagu wargeliyay ninkaasi in lacagta laga doonayo degdegna xabsiga ayaa loo geliyay sida ay sheegayso jariirada Al-Qudus Al-Arab ee ka soo baxda waddanka Kuwait waa tahay inta ayaa ku soo gabagabeynaya barnaamijkii qubanaha waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyadan iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waa inoo barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa nabadgelyo ma ogtahay in hilibka yaalla suuqyada dalalka qaliijka Yurub iyo Mareykanka aad ka helayso magaalada Muqdisho Somali Meat Company ku dooro hilib nadiif ah oo lagu qalay kawaan nadiif ah iyadoo la hubiyay badqabka caafimaadka xoolaha hadda dalbo hilib geel lo ama ari adigoo ka heli kara xarumaha Somali Meat Company ku leedahay gobolka Banaadir ama wac nambarka ku muuqda ku soo dhawow Safari Remit warkii ugu mudnaayo waliga aad maqashaan hadda ku waramaya ee kaalay u hesho Safari Remit haddii aad ku nooshahay dalka UK Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad lacag u dirto ehelka ku jooga geeska Afrika sida Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo waliba dalka Turkiga si fudud oo qiimuhuna jaban yahay macaamiisha cusub waa khidmad la'aan 3 jeer ugu horeysa lacag diristooda isticmaalka Safari Remit waa mid aad u sahlan waxaana ka xigta inaad booqatid www.safariremit.com waxaadna ka geli kartaa laptopkaaga mobilkaaga ama iPadkaaga meel kasta oo aad joogto Safari Remit hadda adeegeeda waxay ka bilowday dalka UK mar dhowna waxa ay ku baahi doontaa dhammaan wadamada Yurub iyo waqooyiga Amerika Safari Remit rugta lacag dirista ugu fudud baahi tiraha baahi loo qabay Safari Remit